munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo qaban qaabiyay isla markaana ka qabsoontay hotel Sawe gudaha magaalada Boorama ayaa waxa ku qalin jabinayay dufcadii shanaad ee ka aflaxa jaamacadda Badar Faraceeda magaalada Boorama waxaana maanta jaamacadda ka qalin jabiyay 350 arday kuwaas oo ka kala baxay 6 kuliyadood oo kamid ah kuliyadaha ay bixiso jaamacadda Badar Faraceeda magaalada Boorama waxayna maanta ardaydani dhameysteen qaybaha kala duwan ee ay bixiso jaamacaddaasi oo kala qaybtii digriga qaybtii dibloomada iyo sidoo kale master degree waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga boardka jaamacadda Badar waalidiinta haniyadeenina rag iyo dumarba nuhannidukum thumma nuhannidukum ilaahay idin ka dhigo kuwii shahaadadaasi ku guuleysta waalidkoodii iyo ubadkoodii iyo wadadkoodaba ku anfaca intaasi kadib isaguna waxa xagaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar Faraceeda magaalada Boorama Professor Saleeman Barkhad Muuse xafladan dufcadii shanaad ee jaamacadda Badar ka qalinjabisay laanteeda Boorama way xafladani waxa ka horreeyay 4 dufcadood oo qaarkood makaankan iyo munaasabadan joogno aan ugu dabaalgalnay dufcadda shanaad waxay ka kooban tahay ay loo qalinjabinaysay إلى 6 كليات يكاكوبان تاعي 6 فاكولتي يكاكوبان يهين 6 كليات يكاكوبان يهين waxay kala yihiin kulliyada shariicada iyo diraasaadka islaamiga kulliyada tarbiyada ama education loo yaqaan kulliyada dhaqaalaha islaamka kulliyada maareynta mashaariicda ama managementiga kulliyada ICT-da iyo kulliyada public health ama caafimaadka intaas oo kulliyadood ka kooban yihiin hadaba programyadaas aan soo xusay oo programyada maanta laga qalin jabinayo tirada guud ardayda dhameysatay programyada jaamacadda ee kala duwan kor ku soo xusay waxay noo noqonayaan 355 arday 355 arday tirada guud ee programyada jaamacadda dhameysatay sanad dugsiyeedka 2020 2021 ardaydaasi dhamaantood waxay soo qaateen waxa la wixii arday jaamacadeed looga baahnaa oo ku qalin jabin lahaa ugu dambeyntii habali yaan leenahay ardaydaas intaasi kadib isaguna waxa hadalka ka daba qaatay Karyaqaan Mubaarak Aar oo ah gudoomiyaha guud ee jaamacadda Badar runtii waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda qalin jabinta ay qalin jabinayaan ardayda ka baxday jaamacadda Faraceeda Boorama waan hambalyeeyaa muddo dheer baad wax soo dhigayseen waa dadaasheen runaantii toonka soo isleey hadda bilowga idin tahay marka la eego dhinaca aqoonta laakiin soo wax qabaa inaad runtii soo goyseen talaabo aad u weyn inaad halkaa ka sii wadaan oo rajaynayaa intaasi kadib waxa hadallada iska daba qaatay isla markaana hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardayda kala duwan ee maanta ka qalin jabinaya marti sharaftii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani أقول لك والدان نقل جبية الحمد لله رب العالمين إنه هراء الله وضدك واحد شيء ضمان با أصحابته أدين هم تولى لي الوحوي عن علم يقول الدعمله هل الدلالة إن شاء الله تعالى ودام والدين هاي عفوا والدك واضح أنا إن شاء الله تعالى والدين تا وحلانا هاي ضدك ووينها الله صدر تعليمته يا ووين بهالجد على الدلالة لنا هاي إلهي وحنا نوقع يا قضب ما تعرضي قلنا شبين إنسان كم ده هاي أنا كوادي أفرحسن أفرحسن قلنا شبين تاسي هذا أنا وحويان وحن علم جام برناي سوي لا إنه بركة يوم ده تكعصنا إنه لا إنه وعفوا علم جام برناي جامعة بدر عدن ما تكبر حيسا كنتي أرضي لو بدو حلاي علم جوا مهم ويا وحلاي بدل ما شاء الله هكذا وضع دمان وحول السلام يا إن شاء الله هذا أنا فرحسنا وجودا طيب كا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وقدري إلى وحبر الشدو دي تقدر دير يكون شرين يسوق على يعني وحوي كبد دي أيوة اسمه شرنا ونوع ده سداي وعرقناي مرك إلهي سبحانه وتعالى إنك قاعد صلنا إذا كان إلهي إذا بانفعه أنا برك الشركة هذا السود وين السلام عليكم أرضنا قلنا جبسي إلهي نباركيه علمك قاعد برتين إلهي سبحانه وتعالى أن نقوم أنفعه بدر بعد حساب برنيسين دال يو وحخرس يسوجد
intaba aad u soo marteen maanta runtii dee gebagabaad maraysaan oo idinkaa shahaadadii qaatay waxaan odhan lahaa uun cilmiga aad barateen ha la sii wado waa la sii xoojiyo maanta waxaynu joognaa qalinjabintii ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda Badr University waxaan leenahay ardayda waan baarigaynaa Allah ha u barakeeyo cilmiga ay barteen macallimiinta soo barbaariya ardayda ay wax soo marayna waxaan leenahay ilaahay ka jazaaysiiyo waxaad ummadda u soo saarteen midhihii wax la soo saarana waxa ugu qaalisan waa bini'aadanka waxaynu hambalyeeynaa ardayda maanta inoo qalin jabinaysa waxaanu leenahay aqoonta barateen Ilaahay idinku anfaco Badr waxaan ku hambalyeenayaa mar afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ay hablaynoo soo saartay inay qoyska dhistay haddii qoysku isla dhismana wax laga xumaanaya ma jiraan aad baan ugu hambalyeeynaa jaamacadda iyo macallimiinteeda waxaan leeyahay Ilaahay aqoonta waa soo qaatay waxay sayidinka baahan tahay akhris badan iyo practical badan inaa wixii u qabataan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aragno intaasoo arday oo ku soo biirtay maanta aqoon-yahaniina aqoon-yahan marka la leeyahay waxa weeyaan dadku ama bini'aadamku cilmiga adduunya iyo cilmiga aakhiraba wuxuu bartaaba waa cilmi marka shakhsiyaduna waxa weeyaan dhinac walba inay ka horumarto marka waxa weeyaan waxaan leenahay ardayda hambaliyo waalidiinta wax soo bartay hambaliyo maamulka jaamacaddana waxaan leeyahay hambaliyo ugu dambeyntiina waxaa xaggaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey dhammaanba ardaydii kala duwanaa ee ka aflaxay jaamacadda